Soomaaliya waxay lahayd laba dawlad waaweyn. dawlad waxay ka talinaysaa hubyo laga soo bilaabo ilaa koonfurta Soomaaliya waa la ogyahay. dawladdaas magaceedu waxaa la dawladda Ujuuraanka, boqortooyada Ujuuraanka la yiraahdaa. 300 sano ka badan ay xukumaysa dhulkaas. 300 sano yani qarnigii 17aad markii laga soo gaaro. maxaa yeelay Portugiiskii super powerka ahaa adduunka ugu xoog badnaa waqtigaasna ciidan uu soo diray nimankii wuxuu u soo hiiliyay Itoobiyaanka Kirishtaanka ahaa ilaa Kirishtaan oo isna ahaa oo soo hiiliyay ciidan iyo hub u keenay. marka Vasco da Gama walaalkiis ayaa marka hogaaminaya ciidamadaas. boqortooyadii khilaafada Cuthmaaniyaduna ciidan waxay soo dirtay Axmed Guri. marka waxaa ku dagaalamay meesha labada super power labada dawladood ugu xoog badnaa oo diin ugu heelinaysa qoonad muslimiinimo ugu soo heelisay Soomaaliya Kirishtaan ugu heelinaysa Kirishtaan ugu soo heelisay dagaalkaas qaar mag waxay la tahay imaam ugaas malana labaa waa dawladda mugta qabiil kasta madaxweynayaal waayo qabiil kasta dawladda uu noqday oo uu leeyahay deegaan uu leeyahay keeliisa ku ilaashadaa xoolihiisa ku raacdaa madax uu leeyahay xeer uu leeyahay shanta marka isticmaalku u qaybsaday Soomaalidu gobonimo doonka ahaa dhalinyarada ahaa idinku sheegay waxay yiraahdeen annaga waxaan rabnaa shantaan qaybood oo dadka Soomaaliyeed degan yahay dhulkan Soomaalida ah in hal dawlad laga dhigan rabnaa. dawladda labaad ee wajirta waqtigaas waxay ahayd ayadana dawlad muslimiinta ka wada dhaxaysa. dadka Soomaali mararka qaar kood si khaldan loogu fasiraa. waa dawladdii caasimadooda ay ahayd Harar iyo muxuu ahaa Zaylac Harar kordooyadaas ma aragta. waxay sakaraysan sheegayni in Soomaalidu ay xadaarad ka sii horeysa lahayd. ilbaxnimo ka hor. ilbaxnimo ka horeysay lahayd oo dawladda ah. oo waxay lahayd fiiri oo waxay lahayd taariikhda marka laga hadlayo waxay lahayd Xatsabsut islaanta la dhihi jiro boqortooyada 4,000 sano ka hor. laakiin hadafkeenu maanta waxaa waaye bal inaan horta baraarujin samayno ku saabsan in ay laga maarmaan tahay in dhalinyaradu ay muxuu ahaa bartaan in dadka Soomaaliyeedna la baro iskoolada lagu baro jaamacadaha lagu baro taariikhdii ummadaanu ay lahayd soo jireenka ahayd oo kumanaan sano soo jirtay isticmaalkii ka hor isticmaalkii waqtiga uu yimiday islaamku markuu dalka soo galay dadka Soomaaliyeed ay u muslimeen sida magaalooyinka u samaysmeen ummadaanu ay isku bedeshay markay diinta qaadata maxay noqotay isticmaalku markuu u imaanayay xaqee ku sugnayd dadka aanu ku sugnaayeen isticmaalku markuu u yimid muxuu ka bedelay maxay noqdeen markii gobonimada ay qaateen gobonimada ka bacdi dawladda samaysantay dawladdaas maxay u burburtay waxay u jiri weysay ka bacdi waxaa burburka ka bacdi maxaa dhacay maanta xageen joogna horta intaas oo dhan kulligeeda waxa loo baahan yahay in muxuu ahaa in la fahmo intaas oo dhan loo baahan yahay intaas marka in la fahmo waa hawl aad iyo aad u dheer waa laakiin bal horta in la fahmo waa intaas in la fahmo in loo baahan yahay in la ogaado horta in la ogaado waa sax si arintaas loo fahmo aniga marka waxaan ka qoray kutub waxaan ka sameeyay muxaadarooyin waxaan ka sameeyay doodo cilmiyeedyo dad badan oo dhalinyaro ah soo baray jaamacado waxaan uga soo sheekeeyay Ingiriisi ku qoran yihiin waxyaabahaas waxaan ku soo qoray Carabiga lagu tarjumay af Soomaali baa lagu tarjumay hatta af Chinese lagu wada hadda lagu tarjumo haya marka ihtimaamka ama mudnaanta la siinayo fahamka taariikhda aad iyo aad ay muhiim uga tahay jiilka Soomaaliyeed hadda waliba nool oo dawlad ku soo aad waqtiga dawladda ka burbursanay dad badan waxay u maleeyaan ummaddu say maanta u taala inay ahaa jirto weligeed ilaa ma arkin wixii ka horreeyay marka taas horta waxaa taasay muhiim u tahay marka inay muhiim inay tahay isla fahmo koow taas qodob waa qodobka labaad aan rabaa inaan dadka ku baraarujiyo muhiimka waxaa waaye niman dhalinyaro ah oo aan iskool badan gelinin waqtiga iskuulnimada jira dhalinyaro ahaayeen waqtigaas dabaysha caalamka ka jirtay oo gobonimo doonka ah ay la jaan qaadeen markaasay ay koo dhalinyaro ah oo 13 ah ayay marka yiraahdeen annagana Soomaali hadii aan nahay oo maxaan sida adduunyada kale dawlad u noqon weyn waa moogtahay qolooyinka SYC da actually hadii kan waxaan naadigii ugu horeeyay waaye oo naadi dhalinyaro ahaa ay ma ahayn xisbi ma ahayn naadigaas dhalinyarada ah marka fikirka markay keeneen dadka Soomaaliyeed waxay ahaayeen qabaa'il kala duwan
oo meelo kala duwan dalka ka degan oo si caadi u nool laakiin dawlad ka dhaxaysa oo Soomaaliyeed ma jirane isticmaalka kala xukumaya qaybna Ingiriis xukumay qaybna Talyaani xukumay qaybna Faransiis haystay qaybna Itoobiya qaadatay Itoobiya iyo Faransiis waxay u qaateen laakiin dadku inta badan isma warsanayeen maxay u qaateen maxaa dalka Soomaaliya inta loo yimid loo qaybsaday dadku inta badan ma fahamsana waxay leeyihiin waana la qaybsaday oo isticmaalkii baa saasna yeelay iyo waxaas akhrinayo taas ma aha su'aasha la iswarsado waxa waaye oo maxaa lagu qaybsaday oo maxaa lagu qabsaday waa laba arrin arrinta koobaad waxa waaye Soomaaliya waxay ku taalaa meel muhiim uga ah adduunyada istiraatiiji ahaan geeska Afrika waa meel weyn oo muhiim ah oo saddex qaaradood isku xirta qaaradda Aasiya iyo Afrika iyo Yurub oo ku Suez Canalka ay kula xiran tahay muxuu ahaa ay ku taalaa oo hadda marka la fiirsho taariikhdii hore qadiimka ahaydna xadaaradihii asalka ahaa Soomaaliya way ku xirreed way ka mid ahayd ilbaxnimadii haa marka meel muhiim ah ku taalaa Soomaalidu meel muhiim kuma taal waaya haddii marka adoo meel muhiim ku yaala aad tabar darantaa marka laga faa'iideysana oo aadan isdifaaci karin ilaa adduunyada ixsaan la iskuma sameeyo hebelaa ay qabsaday hebelahaas iyo war ma aha adduunyada qofaan qof kala qabs dawlad kala qabsanayn ma jirto hadda maanta waa aragtay Ukraine dagaal ka socda Soomaaliya maxay tahay dol muhiim ah ay ku jirtaa isku xirtaa dalka Ruushka ahaa iyo reer Yurub isku xirtaa marka qole kasta waxay rabtaa marka inay xukunta Soomaaliya Ukraine marka Soomaaliya taasoo kala muhiim ay ahayd waa tabar dareed marka dawladihii adduunyada jooga waqtigaas xoog lahaa ayaa dawlad kasta waxay tir war qaybaan ka qaadanaya Soomaaliya waa la qaybsaday maxaa loo qaybsaday Soomaaliya tabar dareed isma difaaci karin dhul muhiima wada isdifaaci karna haystaa asmata waa lagu qabsan marka ihsaan ma jiro dadka qaar ihsaan ka hadla ihsaan ma jiro dawladnimada qolay ka xoog badan tahay interest amba xoog ku qabsahay amba si fudud u qabsahaysaa oo xoolay yani waxay ku xukumaysaa si sahlan u xukumay amba si toos ah u xukumay marka Soomaaliya waa la qabsaday marka Soomaaliya markii la qabsaday dhalinyaradaas ayaa waxay rabaan dawladda u baahannahay muddo ka bacdi say u halgamayeen adduunyada lama noqono dawlad lagu dhawaaqa Soomaaliyeed asbata halkaas aan rabnaa inaan ka bilaabo marka muddo dheer adduunyada waqtigaas Afrika oo dhan baa waxa la siinayay gobonimada waxaa dhamaaday xilli caalamku uu soo maro oo ah in la isticmaarsado in la isgumaysto ayaa laga guuraayay waxaa loo guuraayay dawlado in la noqdo oo marka jamciyadda qarumaha ka dhaxaysa ummadahaas ay ka mid noqdaan oo hadda ilaa 200 oo dawladood ay ku jiraan ayaa markaas samaysanta 45 marka dawlad kasta waxa waaye gobonimada la siinayay Soomaaliya waxay ka mid tahay dawladda gobonimada la siiyay 60kii ayaa gobonimada la siiyay laba gobol oo 5 gobol oo Soomaaliya isticmaalku u qaybsaday laba gobol oo kamidana waxa la waa idin ogolnahay israaca saddexda kalena waa loo diiday xaliri maladin siinaa saddexda kale Soomaalidu laakiin waxay rabtaa in shantooda isku tagaa Soomaaliya waa waqooyi iyo koonfur labada la isla ogolaaday la ogolaaday waxaa marka la sameeyay wax lagu maxaan ku magacaabo dawlad qabya ah maxamiyadii wey dawlad qabya waxaa dawladda Soomaalida oo waxay ahayd 5 inay ka koobnaato gobol oo isticmaalku u qaybsaday Soomaaliya 5 marka isticmaalku u qaybsaday Soomaalidu gobonimo doonka ahaa dhalinyarada ahaa idin ku sheegay waxay yiraahdeen anaga waxaan rabnaa 5 qaybood oo dadka Soomaaliyeed degan yahay dhulkan Soomaalida ah in hal dawlad laga dhigan rabnaa wara Soomaa waa sax halkii dawlad si looga dhigo halgenkii uu wuxuu keenay ugu dambaystii ilaa waa qasa dheere inay suuragal noqoto laba kamid ah in Ingiriiskii iyo Talyaanigii ku heshiiyaan aan isku darno labadan marka 60kii ay marka dawladda Soomaaliyeed oo leedahay Somali Republic ayaa saa ku samaysay waxay ahayd dawladda ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee qarnigii 20aad Soomaa la sameeyay dawladdii ka horeysay Soomaaliyeed goorma ahayd ma taqaana Soomaaliya dawlad ka horeysay ma jirto miya waqtigaas dad badan uma daan idinku imtixaanada waa ku dhacaysay moogtahay Soomaaliya war 60ka ka hor Soomaaliya dawlad ma lahayd ilaa